asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka guddoon garaafi ku soo dhowaada muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan ku baran doonaa qaybtii shanaad ee barnaamijka caanka ah After Effects CC 2020. waxaynu hore u soo sameynay projectka qaybtiisa koowaad waynu ku soo sameynay background-kan iyo sidoo kale sawirkan oo sidan ku imaan doona qaabkaas ku imaan doona animation-ka. marka waxaan sameynaynaa caawa qoraaladii oo halkan qoraal ka soo bixi lahaa, halkan qoraalkii TV-ga oo yaacayay saas u yaacayay aan sameynaynaa insha Allah. waxaan tagaynaa qoraalka koowaad ayaan double click siinaynaa, qoraal ayaan tegaynaa, halkan weeye qoraal maadaama halkan uu yahay waxaan tegaynaa qoraalkan soo diyaarsanay, qaybtan ayaan copy soo leenahay. copy markaan nidhahno qaybtan After Effects aan ku noqonaynaa, markaan After Effects-no T soo qaado kadibna halkan click C, meelahan click C. markaa click C waxaad samaysaa Control V dhe, qoraalkaaga halkan ku magaranaysaa ku diyaari. meesha qoraalku waa ka yar weyn yahay, waxaad taabanaysaa heerkaa labaad oo u dhimanin, waxaad taabanaysaa S oo u dhiganta skill. marka kanaan rabnaa inaan isticmaalno oo yareynaya qoraalka saa noogu yareynaya, kanna saas ayuu noogu yareynaya qoraalkan, waa labadiisa dhinac. silsiladda markaan ka furnay sidaan rabna ayaan dhinaca rabna ayaan ujeedinaynaa. okay, qoraalka meesha ku aadinaynaa, intaan drag and drop nidhaahno ayaan meesha saas ugu aadinaynaa. markaan meesha saas ugu aadino qoraalka waxaan sameynaynaa anchor point-gaas ayaan rabnaa inaan qaadno oo meel ku aadino. gees ayuu nooga aadan yahay, halkan dhexdaas ayaan ku aadinaynaa. kadib ayaan waxaan sameynaynaa farta inaan kala bedbedelaan rabnaa. double click C, marka double click C qaybtan kore bold baan ka dhigayaa, bold ayaan ka dhigayaa. halkaan tegayaa waxaan ka dhigay bold, waa waaweyn baan ka dhigay. qaybtan hoosena yar yar baan ka dhigayaa, waxaan ka dhigayaa iyada light oo kalean ka dhigaya. light way aad u yar tahay, light maadaama aad yarta waxaan ku ceshanayaa taydii hore ayaan ku ceshanayaa. ujeedaa fartu way kala yar waaweyn tahay, maadaama xoogaa kala yar waaweyn tahay intaana waxay farta ku kordhinaysaa qurux. okay, fartaas markay saa tahay waxaan soo qaadanayaa effect la yiraahdo typewriter. halkan ayuu ku jira typewriter, halkan oo effect and presets ayaan click siinayaa, kadibna waxaan qorayaa typewriter ayaan qorayaa. kadibna waa kan typewriter, drag and drop ayaan leeyahay oo ku sii deynayaa dhac. markaan ku sii daayo qoraalkaygii ayaan taabanaya, waa kaas qoraalkaygii. marka si aan key frame-kiisa u arko waxaan taabanayaa U ayaan taabanayaa. key frame-kii meeshaan ku sii daayo saan u arko U baan taabanaya, waa kuwan key frame-kiisii. key frame-kan ayaan waxaan leeyahay assistant key frame, kadibna easy baan leeyahay. okay maasha Allah si fiican u qurux badan ayuu u dhaqaaqay. marka shaashadii aan u noqonaa, marka shaashadii markaan u noqdo qoraalkii ayaan soo qaadaa, kor qaybtiisa ayaan soo qaadaa, halkan ayaan dhigayaa. xoogaa ayuu marka meesha ka yar weyn yahay, xoogaa ayaan la ekaysanaya, qayb in yaro qiyaas ayaan la ekaysanaya. geeskaasna waan dhigayaa, geeskaasaan dhigayaa. okay, marka fiiriso waa kaas si qurux badan ayuu u imaaday. okay, waxaa ii soo haray kii hoos soconayay, qaybta hoose kii soconaya ayaa ii haray. wararka hoose ayaan leeyahay, waa kan wararka hoose iyada waxaan ku dari doonaa insha allahu tacala. waxaan ku daraynaa rectangle baan ku daraynaa. marka waxaa xasuusinaya rectangle halkan weeye, haddaad double click siiso waxaa lagu siinaa rectangle oo positionkaagii la-eg. waa kaas rectangle meeshaadii la-eg ayaa lagu siiyey. marka maadaama rectangle meeshaydii la-eg lay siiyey, waxaan rabaa rectangle-ka inaan laba ka dhigto, inaan ka dhigtaan rabaa. waxaan leeyahay Control D, kan sare ayaan dooranaa. marka kan sare ayaan magaca ka bedelaa, waxaan bixinaa saacadda. waa kii kan sare weeyaan. marka kan sare waxaan rabaa inaan haaf ka dhigo, wax yar geeskan aan ka dhigo maadaama meel saacadda aan soo saaray ay tahay.
waxaan tegayaa anchor point calaamadan aan rabaa inaan qaado geeskan geeya si aan hadhow ugu dhaqaajiyo skill halka geeskaasaan saaraya kadibna s baan taabanayaa sna waxay dhigtaa skill marka silsiladan aan ka fura maadaama aan rabaa inaan hal dhinac isticmaalo dhinacana soo kaxeena intaas markuu joogo intaan waa igu filantaa malayna wax yaraan soo celinaa kaadi intaasoo kale aan ka dhigaa intaas kale markaan ka dhigo kadib asaga waxaan ka bedelayaa kalarka ayaan ka bedelayaa kalar ayaan u taabanaya kadibna madow xigeen buluug madow xigeen ayaan ka dhigay kaas ka dhigaya okay weeyaan marka waxaa ii hadhay fartii marka aan keeni lahaa halkan fartii aan keeni lahaa baa ii hartay waxaan tegayaa meeshii aan farta kusoo diyaarsay notbarkii aan tegayaa waxaan soo koobiray qaybtan ayaa waxaan leeyahay control c kadibna waxaan ku noqonayaa halkan t baan taabanayaa t markaan taabto halkan ayaan taabanayaa kadibna waxaan dhahayaa control v ujeedaa halkan ayuu qoraalkii bud ka soo yiri qoraalkii maadaama halkan bud ka soo yiri waan qaadaya qoraalkii waan kaxaynaya gebigiisaba halkan gadaalaan geenayaa halkan ayaan geenayaa qoraalkayga halkaas geeska markaan geeyo qoraalkayga waxaan siinayaa waxaan u taabanayaa position ayaan sorry waan khalday tan waa inaan geeskan geeyo tan waa inaan geeska dhigo markaan positionka aan key frame siinayo key frame siinaya kadibna kanaan kaxaynayaa geeskan dhigayaa geeska markaan dhigo fartan soo kaxaynaa marka fartiya raadinaya waa kaxaynaa intaan shifta u qabto ayaan kaxaynaya xaggaan u wadaa 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 xaggaan u wadaya weligayba xaggaan u wadaya xaggaan u wadaya xaggaan shiftu waxay kaa caawinaysaa fartu inaanay kaa leexleexan ayay kaa caawinaysaa intaa markaan dhameeyo intaa markaan saa iri waa soo celinayaa beley baan leeyahay fartayda saasay ku socotaa marka cilladaa jirta cilladda maxay jirta maxay tahay mataqaanaa fartu kan dushay ka maraysa kan oo aan ugu talagalay saacadda inay ka soo baxo waa kan dushay ka maraysa mar rabna dusha inay ka maraysa see yeelina asagaan tagaynaa drag and drop leenahay saacadda korkeeda ayaan dhigaynaa farta korkeeda ayaan dhigaynaa fiirsan marka meeshaan waxa dhacay fartii intay ku xaroonaysa meeshaas ku xaroonaysa meeshana saacaddii ayaan dhigaynaa okay saacaddan boobsis u dhigaynaa marka t ayaan soo qaadanaynaa t qoraal ayaan soo qaadanaynaa meeshaan ayaan ku qoranaynaa saacadda waxaan ka dhigaynaa bolti baan ka dhigaynaa 12:45 kadibna kan ayaan taabanayaa iyo 23 ka dhig no waxaa ka dhigtaa 12 kadibna kan u taabo laba dhibcood u taabo kadibna 45 dheh kadib gmt qor gmt okay fartan aan soo qaadaynaa marka intaan soo dhigaynaa fartan ayaan soo qaadaynaa halkan aan soo dhigaynaa marka fartii waxoogaa meesha ka yar weyn waa yaraynaynaa inagoo waxoogaa meesha lekeysiinaynaa ayaan yaraynaynaa geeskaan dhigaynaa marka halkaasaan dhigaynaa okay weeyaan wataa marka fartii wax dhan saanay u yaacayaan wixii iyo fartii o dhan aniga waxay macnaha hadda waxaan isku aadaadaniya maaha ee dhisaynka qaabkiisaan ku tusayaa bas waa ka saasaan u diyaarinay tan okay shaashaddaan u noqonaa marka shaashaddii markaan u noqdo waxaan tegaa wararka hoosean soo qaadaa halkaanaan dhigaa wararka hoose marka halka dhexda ku aadamay soo maaha waxaan u taabanayaa b position ayaan taabanayaa kadibna tan ayaan soo kaxaynaa hoos ayaan geynaa hoos ayaan dhigaa xayar korqaad okay weeyaan intaa waa ku guulaysanay intaas wayna ku guulaysanay waa qaabkii tv-ga loo diyaarinaya alaabtiisa waa ku guulaysanay waxaa noo dhiman keliya ina codkii iyo halkan codkii alaabtii dhaqdhaqaaqaysa codka oo spectrumkii halkan dhaqdhaqaaqayey oo effectiga watay oo codka halkan yaacyaacayey ayaa noo dhiman kaasna waxaan samayn doonaa koorsada dambe ayaan ku samayn doonaa fadlan muuqaalka haddii uu ku cajabiyey sheer gare la wadaag walaalaha u baahan inay ka faa'iidaystaan koorsadan sidoo kale
wixii faahfaahin ah ama su'aalaha nagu soo weydiiyey qaybta descriptionka aad waa mahadsantihin